munaasabadan oo ahayd furitaanka dugsiga hoose dhexe ee Bilaal sanad dugsiyeedka 2016-2017 ayaa waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala gedisan ee bulshada, ururada haweenka, hooyooyin, waalidiin, dhalinyaro, macallimiin iyaguna ka dhiga iskuulada kale ee ku yaala deegaanka, hormuudka jaamacadda Galgaduud University iyo sidoo kale wakiil ka socda hay'adda SAFE oo iyadu qayb ka mid ah iskuulkan gacanta ku haysa. ugu horeyn waxa ka hadlay halkaasi maamulaha iskuulka hoose dhexe ee Bilaal waxaana uu sheegay inay tahay munaasabadani furitaanka sanad dugsiyeedka 2016-2017 iyo qalinjabin arday dhameysatay dugsiga hoose dhexe isla markaana u gudubtay dugsiga sare. furitaanka dugsiga hoose dhexe ee Bilaal sanad dugsiyeedka 2016-2017 mar labaad waxaan leeyahay mudanayaal iyo marwayaal kusoo dhawaada xafladda furitaanka dugsiga hoose dhexe ee Bilaal. tirada dugsiga ay maanta ay aad u gaaraysaa markii aan eegna taariikh ahaan markii marxalada kala duwan oo soo maray xilliga hadda barbardhig marka loo sameeyo tirada ardayda aad u siyaaday taas waxa ay turjumaysaa mise ay noo sheegaysaa in iskuulkii uu horumar ama wax la taaban kara oo sheegaya xagga gabdhaha oo aad u batay iyo wiilashii tiradoodii Sheekh Ahmed Jaamac Dhirif gudoomiyihii hore ee degmada Caabud Waaq ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay kor u qaadista tacliinta waxbarasho ee deegaanka waxaana uu aad ugu farxay iskuulada ku yaala degmada Caabud Waaq sida ay markani ula dadaalayaan jahliga una soo saarayaan arday aqoontoodu oo aad u sareyso. cilmigu waa shayga cid kasta ay ka maarmayn waa kii shaacirka qarbeed lahaa al-ilmu yabni baytan la asaasa lahu والجهل يهدم بيت العز والشرف. أقونتو واحد يستا قولي أنلاين تير يا أساس يمارتا تكنولوجي حين أنسيس لودكين. حالك جهل وكدوميو قولي عزك يا شرفك. مركا أقون أنا مركو على باهي بلشان أنا كفكرنا إن أنا الله وحبرشة أو وحبرشة هنا وحبرشة تيالا أو وحبرشة اللي فكر تيادا محلنك بدك والدك تيادا مامولك يجاوب وحبرشة Madar Bashiir oo ka socday hay'adda Save Children ayaa sheegay kuna booriyay macallimiinta iyo maamulkuba in ay ku dadaalaan sidii ardayda bilowga ah ay u dhameystiran lahaayeen waxbarashada asaasiga ah ilaa iyo heer jaamacadeed. ardayga waxa marka muhiimadda ay tahay inaan ka fikirno oo problemka ugu badan oo aan ku arnay iskuulaadkan ay tahay ardayda waxaan rabnaa in aan insha Allah ta'ala aan ku salayno ama aan ka fikirno qaabkii ardada 80% ay u dhameystiran lahaayeen waxbarashada. marka waxaan aad uga dardaarmayaa dhammaan iskuulaadkeena gaar ahaan iskuulka hadda maanta aan joogno runtii xafladan dadka badan ay isugu yimaadeen waxaan maanta qowlkan adkeenayaa u yahay in aan ka fikirno sidii ardada koowaadka ah oo soo gashay iskuulka 80% ay u dhameystiran lahaayeen waxbarashadooda sideedaadka ama secondary-ga u dhameystiran lahaayeen. hormuudka jaamacadda Galgaduud University Maxamuud Cali Dirir ayaa sheegay in loo baahan yahay in waxbarashada aan markaasi laga harinin aysan lahaynna waxbarashadu yaraan iyo weynaan dadka waaweynna uu ku boorinayo in waxbarashada halkoodii ay ka sii wadaan. madaxa waxbarashada gobolka Galgaduud ee maamulka Galmudug Cabdullaahi Colaad ayaa dhankiisa ka wasaaradahan waxa uu sheegay in ilmka inay ku jiraan dadaal aad u ballaaran oo dhinaca waxbarashada deegaanka isla markaana ay kor u qaadi doonaan tayeynta iskuulada ku yaala deegaanka. wasaaradahan markaan hadda waa hadlaynana waxa weeye awooddu ha iska yaraato laakiin systemka nidaam maamul markuu jiro system baa jira haddii systemka la raaco waxa la gaarayaa horumar baa la gaarayaa laakiin haddii la diido oo mataqaana la quursado oo macna la'aan laga soo qaado waxaad moodaa in dadkaas uu ku sii socdo burburkii inuu horseed u yahay laakiin hadduu mataqaana waxa uu jilicsan yihiin laakiin ayagu ay hore u qaataan inay wixii wanaagsanayeen. ugu dambeyn Mahad Maxamed Cawil oo kamid ah culimada awdiinka deegaanka isla markaana wax ka bara mid kamid ah iskuulada ku yaala deegaanka ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in marka hore lagu dadaalo sidii loo xoojin lahaa amniga iyo midnimada. ugu dambeyn macallin Sugaal oo ah gudoomiyaha iskuulkaasi iyo gudoomiyaha guddiga waalidiinta ee iskuulka hoose dhexe ee Bilaal ayaa sheegay inay waqti badan ku bixiyeen sidii iskuulkani u noqon lahaa mid tayada waxbarasho ee ardayda wax ka barta ay tahay mid aad u sareysa waxaana uu ka codsaday jaaliyada ka soo jeeda deegaanada waqooyiga gobolka Galgaduud in ay kaalmo ka geystaan sidii iskuulkani loo sii ballaarin lahaa. waxaan kaloo rabaa inaan cod u jeediyo
iskuulka waxyaalo fara badan buu u baahan yahay tahay oo maanta codsanaynaa ama inta martida ah ama inta hay-adaha ka socota ama inta guddoonka waxbarashada ama heer goboleed ama heer federaal ha ahaatee in insha allahu tacaala ay masajka gudbiyaan iyo jaaliyadaha nala jooga ama jaaliyadaha gudbiyaan oo dowladda gudbiyaan masajka wuxuu yahay inaan u baahannahay oo ay kow noo tahay iskuulku deelaan buu naga yahay dhifar badan baan ku qabnaa marka waxaan rabnaa insha allahu tacaala insha allah ciddii wax geysan karta inay wax geysato waxaan rabaa inaan kusoo intii ay socotay munaasabada daafurka iskuulka ardaydu waxay ku soo bandhigeen goobta riwaayado iyo majaajilo ka turjumaysa qiimaha ay leeyihiin waxbarashada caafimaadka iyo sidoo kale deegaanka Bashiir Yuusuf Nadaara TV-ga caalamiga ee Kalsan waqooyiga gobolka Galgaduud magaalada Caabudwaaq